ceelasha biyaha ka socda cashadeyda quraacdeeda iyo qadadeeda dhan waa wataa taageer galmudug taageerayaasha hadda oo galmudug garoonka agtiisa way buuxaan caawada oo 6 saac ay tahay buuxaan meeshaan waxaa idin ka rabaa biri 2 saac inay imaataan iyadoo saacado kooban ay ka harsan tahay ciyaarta ugu dambaysa tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir una dhaxayso maamul goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudug xilligan oo ah 6 saac habeenimo waxaa afaafka hore garoonka Stadium Muqdisho ku sugan qaar ka mid ah taageerayaasha Hirshabelle iyo Galmudug iyagoo halkan u soo xaadiray inay xilli hore garan garoonka Stadium Muqdisho waxaa la hadalnay qaar ka mid ah taageerayaasha Galmudug si ay u arkaan inay halkan soo xaadiraan xilligan oo ah saq dhexe dareenkeena lama soo qiyaasi karo maadaama hadda hor taaganahay garoonka Stadium Muqdisho xilligan oo waqti saq dhexa waxa u taaganahay inaan birito ciyaarta waqti hore galno si aan wiilasheena u garab istaagno waxa xilligan keenay waxay tahay dhiig kaliya uu jiro ma fahanti teeda kale anaga meeshan cabsi wax Allah ma jirto anaga fariina direena taageera Galmudug danaane haddii rigoor gaarto ciyaariyaankii rigoor una koobkaas noo keentiin haddii koobkaas noo keenaysiin baleeyada Galmudug lacag wax Allah ma jirto dhimasho ka wada xigtiin kulligiin hal baleeyar badbaadaya ma laha calankaas u jeedin calankaas u jeedin badan oo soo dhintay fahantiin ceelasha biyaha ka socda cashadeyda quraacdeeda iyo qadadeeda dhan waa wataa taageer Galmudug dhinaciisa waxayna la hadlay mid ka mid ah taageerayaasha Hirshabelle isagoo taageerayaashiisa ugu baaqay inay xilli hore imaadaan garoonka maadaama halkan ay joogaan taageerayaasha ugu badnaa Galmudug si ay u dhiirigeliyaan ciyaartooydooda iyo macallimiintooda oo markii labaad soo gaaray heerka ugu dambeeya ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaan rajaynaynaa biri insha Allah ugu dambeyn taageerayaasha Hirshabelle inay imaadaan 2 saac ay reer Galmudug inaan ka soo hormarnaa rajaynayna qof walba oo Hirshabelle taageero inuu 2 saac imaado garoonka 2 saac subaxnimo waaya taageerayaasha hadda oo Galmudug garoonka agtiisa way buuxaan caawada oo 6 saac ay tahay buuxaan meeshaan waxaa idin ka rabaa biri 2 saac inay imaataan dhinaciisa waxayna la hadlay mid ka mid ah dhalinyarada deegaanka oo ku soo baxay khaylada iyo isku soo baxa dhalinyaradan ee ku sugan afaafka hore ee tuulada ciyaaraha Stadium Muqdisho isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay jaceylka iyo horumarka ay dhalinyaradan u qabaan horumarka kubadda cagta Soomaaliya inay daawadaan ciyaarta xiisaha badan ee u dhaxaysa Hirshabelle iyo Galmudug horta ani bulshada oo garoonka Iridis degan ka mid ahay oo garoonka wadada ka soo horjeeda degan ka mid ahay marka xilligan buuqa maqla anoo saxaro xitaa macmuusta wata anoo saxaro buuq maqlay waa soo bax halka waxa ku arkay taageerayaal Galmudug iyo Hirshabelle oo xilligan waqtiga ay tahay 7 saac oo habeenimo hadda si gal rabto xilligan garoonka Iridis ay joogan intaas waxay muujinayaan yani inay wiilashooda garab istaagaan ay rabaan bari hadduu ilaa raalka noqdo reer Hirshabelle waxa uu rajeynaa guul reer Galmudug waxa uu rajeynaa guul sababtoo ah wiil oo qurux badan iyo gabdhaha xilligan meeshan joogan qaar xataa cashadooda wata u jeedeen oo garoonka xilligan inay galaan ay rabaan laakiin ciidanku waa ka diiday inay galaan xilligan waxay rabaan inay barta laamiga ay saxdaan si ay bari xilli fiican u galaan oo wiilashooda u garab istaagaan isku soo wada dub guud ahaan Soomaaliya iyo caalamka ayaa laga sugayaa natiijada ciyaarta xiisaha badan ee maalinta biri u dhaxaysa maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle maadaama Hirshabelle markii ugu horeysay taariikhda ay soo gaartay heerka ugu dambeeya halka Galmudugna ay soo gaareen markoodii labaad Maxamed Xuseen Qalinle afaafka hore garoonka Stadium Muqdisho